maxamed baan isagana bal xildhibaanka bal tacadiyada amba dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka xorriyatul qowlka dee waa imika way siiba xarkay goostay imika in ragga xiniyaa laga saaray imika maraysaaba meeda meeshay marayso meel la qiyaasi karaba ma hadde qaar in ay sheegaan waa la naqaadayo sidii fiidmeerta maarata waata hoos soo foorastay waa la soo foorariyey qaar yidhahdaan dadkii la xidhay sidii fiidmeerta saa loo soo foorariyey in maad aragtay qaar qabashadii xabad lagu horreysiiyey xabad noolnoo loogu horreysiiyey in maad aragtay qaarkood argagax iyo dhibaato loogu daro oo guryaha loogu daatay habeenkii isagoo very simple maasoor laga qaban karaya casarkii dheera in mar alla marka saldhigga lagu geeyo wax alla waxa tahay ma jirto aniga 10 times baa loo xidhay wax alla waxa tahay inaad dhagax tahay inaad qof tahay iyo inaad geed tahay maba kala yaqaanaan awoodda mutlaqa ah ee kama dambaystaana waxaad moodaa dalka inay leeyihiin hay'adaha amnigu waayo waxaan imika maxamuud sheegi ulaa lagama dab ciidanka amniga markuu garyaqaanada saa u hadlaan markaad baxay samaynaya dhow ciidanka markay dhaadaan lagama hadli karo booliska hay'adaha amniga dastuurka jabinaysa markay dadkii intellectualiska ee ummadda iyo xuquuqda aadamaha bartay markay saa u hadlaan maxuu qofka jaahilkii samaynaya tuugii la soo qoray booliska laga soo dhigay muxuu samaynayaa daada ku weydiiyey dee waa inuu suu doono sida kubadda ku laaglaago wey cidna waxba iska weydiinin waa inuu xiniyaa kaa saara saldhigga dhexdiisa waan cidi waxba iska weydiinin waa inuu gabadh miskiin oon qori sidan oo hub sidan sargaal dhan oo darajo labisan uu laag la dhaco wey waxaas wax laga hadli karaa qalbigayba waxaas kamaba hadli karmaba dhamayn karaba 3 mitir square baa loo geenayaa 60 nin baa laydinku xidhaya 3 mitir square saagabignuba kooma gelaysa maadhood qaar baa ruqi laga soo xidhay waxa la xidhay iftin baa la geeyey waa 3 rooms oo min 2 mitir 3 mitira markii lagu xidheeyey koomay daateen waa bilaahi calaykum waa xaqiiqo jirta oo dhab ah oo ciidamada barhkooda iyo ogyihiin wey fucking haraasmaka laga hadlaya waa kayna yaro la fulo wax kaasa ka xun saldhigga dhexaarkiisaa ku xidhnaa anigu siyaad barre markuu dhisay shabag baa ka horreeya dayrka laga leydhsado oo intaa laaleeg baasha somaliland way talbiistay gidaarkii mar alla marka lagu xidheeyo ee 3 mitir sidaasa iyo 2 mitir saa lagu xidheeyo 20 ayaa imika may muuqdaan halkan imika may muuqdaan ishayday leegaanayaan sidii oxygen u raadinayaan nin la xidhay baa garanaya daynta kale ma garanayso ciyaar baa haysta iyo jokin baa haysataa I'm telling you jokin baad haysataan qof kasta oo Soomaaliland la xidhay oo waqti male imika maaldhood rag suuqa ma laga ururiyay iyagoo xidhan oo saldhigga madheere ku jira ayay maxkamadda waaranka u jirtay xaq dastuuriya waxaa in garsooraha la hor keeno qofka maxbuuska oo silsiladda laga furo oo isagoo xora haddii la rumaan garaynayo garsoorku rumaan garayo haw garsoorkii war dad laan bayna haysaa kuwii dhaliilaa garsoorka qori jiray baa garsoorkii loo dhiibay kuwii baa shaqaysanaya kuwii baarlamaanka cay jiraa baarlamaankii yimiday isagii baa daniis ka shaqaysanaya wasiirkii ummadda dhaliilaya baa wasiir laga dhigay isagii baa daniis ka shaqaysanaya deedada soo iibsanna markaa aan miyamaar iyo u doonana soo maade dee haa saasay noqonaysaa ninkii waxaa ka hadlaya dadka ma qiimeynayaan waxayna dilana waxa weeye waa nin laba nina waa naag laba naagooda waa mas-uul laba qofa oo markuu bannaanka jooga waa qof wanaagsan waa onas waa nin daacada waa nin ummadda u shaqaynaya mar alle markuu gudaha galaa buu leeyahy maxaa iga gala aniga dadka cadaabta alla geeyo mid baa kuuri la xidhi jiro golaha nagula jira waar gidaarkii ummadda ma ka duminaa halkii ma tegnaa ka duminaa suuri maanta mas-uul qaran baan oo arrimaha aanu ma faragelinayo oo mas-uul qaran soo shalaad koys soo berri shacab noqon maysid maxamed saalax maanta ma xasaanad buu leeyahy xildhibaan buu shalay haaye haddaan ka dumin waayo beryaalkii uu dabagalay igu xidhaya aniga bilaa lay dhahay dee haddaan maanta tacadigooga laga hadlin oon lagu xisaabtamin inanka xiniyaha laga saaray haddaan lagu xisaabtamin maad aragtay ina talaaqa lala dhacay berri toolaadaa ku xiga walaalkii loo xiiriyow adna suuqis haddii lagu dhaa waa mid reer hebelo haddii lagu dhaahdo saaxiib dee reer hebelka laftooda cishaba qola madaxtooyada fadhiis dee haddee ummadduna wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waa dhadhaminaysaa wallaahi maalintaada haddaad maanta ka dhidhii weydo maxay maraykanku qaxootiga afghanistan uga qaylinayaan oo uga qaylinayaan koonfurta suudaan oo uga qaylinayaan ADBS-ka hargeysa dhexdeeda ku barakacsan waa inay iska ogaan oo iska ilaaliyaan intaan iyaga soo gaadhin holaca iyo dabka iyo gaajada baxaysa innaguna waxaan odhanoo isku adeegana kiina abiiba fashfash waa la xidhay
sida aydu xidhnaa maarkisa gaadhiga lagu hormariyey waa nin walaalkaayoo lagu xadgudbay ayaad ku sacabka u tumaysa aad ku faraxsan tahay war dadku markay dad noqdaan buu sharcigu hagaagayaa maxaad naga wereerinaysaa intaas sharci baa jira iminka dastuurkii halkan baa laysku haystaa kanay faray iyo kanay faray iyo kanay faray hadda waa kaleer waa waxa lagu murmayaay waa wax kaleera kuwii qornaaba laysku haystaa ma odhan karaysaa shacabku beenaale iyo albaatiina naga fadhiista isma dhaantaane lacag 400 milyan oo dollara ayaa hargeysa biyasiin weydi reer Hargeysa oo idinka idin weydiinaya maxaa la raadinaysaa 3 sanadood maxaa la biyalaanay maxaa dhakhtarkii weerar Hargeysa hagaagi lahay dad baa la siiyo masaarifaysta kuwaas habroodaagaya in adeerkaaya habroodaagaya xumaantiiba habroodaag oo qabyaaladiiba habroodaag leh oo saaxiib leh oo walaal leh oo ku difaacaysa imika laakiin rajo wanaagsan baa qabaayo maaldhood barakay mid walaalkii ku leh waa tuugo xoolaha umadu cunaa ilaahay barakeeyo dadka soo socda assalaamu calaykum waraxmatullaah